Yeah, yeah, yeah. Sarayga Studio. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا هذا مقالك كحسب تاي لايك نوصار channel كادا كحسب تاي سبسكرايب نوصار دي هذا يا هستنتاي كسودو مقالك نحسب أنا waxaan jiray 18 sano waxaana joogay xafladda aniga saaxiibkay zaid ayaan habeenkaas u cabsanaa aniga kadib meesha xaflad weyn ayaa ka jirtay anigoo markaas waxaan qabtay la ayaa saaxiibkay wuxuu yiri saaxiib xagga fiiri waxa taagan anigoo markaas dhahayo iga daa kadib waan fiiriyay waxaan arkay gabar meesha taagan oo sharaab cabayso kadibna meesha ayay taagneed aniga markaas waxaan jeclaystay inaan u tago kadibna waxaan dhahay saaxiib waan u tagayaa waan soo laabanayaa ee halkaadii ugu sii sug runtii zaid ayayna iisoo fiirisay marka dambe waan u imaaday waxaan dhahay ma sheekaysan karnaa kadibna waxay tiri haa diyaar ayaan ahay laakiinse markiiba aniga cabsi iguma jirin way ii qosashay si qof horey ah isku naqaanay camal kadib markaas biyaha ayaa cabnay sharaabka anigoo markaas zaid u leh caawa waa ku haystaa ayaa waxay tiri ma bixi karnaa saa u aadno xaafadeeni usoo damaashaadno kadibna waxaan dhahay saaxiibkay ayaa la soo hadlaa waan ku imaanaya sug saaxiibkay ayaan waxaan ku dhahay saaxiib meel xaafadan ayaa yar gaaraya sug kadibna asaga u mashquulsanaad waxaan istaajinay gaari saan gurigeeda u aado gurigeeda ayaa imaanay runtii gurigeeda mugdi mugdi ayuu ahaa qolalka guryaha kalena leerka ma daaran ayada bes ayaa degnay guryaha kaligeed kadibna guriga mugdi ayuu ahaa anigana zaid ayaa u cabsooday markaas kadib nalka ayay shiday laakiinse arrin la yaab leh ayaa markaas igu dhacday aniga guriga dhan ur ayaa kasoo urayay runtii zaid ayuu u urayay calooshana way i xanuuntay kadib anigoo caloosha zaid i xanuunaysa oo baqaaya ayaa waxaan dhahay musqusha xaggee ku taallaa adoo raali ah musqusha ii sheeg kadibna waxay tiri xagga u aad musqusha xagga ayaa loo maraa kadibna waxaan jeclaystay inaan aado anigoo markaas sankay xanuunaya oo musqusha soo gala sanka haysto ayaa musqushana zaid u sii ureysay waayo ma dhaqneen musqusha waxay ahayd musqul aan la dhaqin sanad camal waayo guriga dhan dhiig ayaa ka urayay anigana zaid ayaa u baqaayay anigoo markaas naxsan oo baqaaya ayaa waxaan dareemay dhibic dhiig oo wax tifqaayo kadibna waan naxay aniga zaid ayaa u baqay waxaan dhahay maxaa waxaan tifqaayo kadib meesha ayaa fiiray saa usoo fiiriyo waxaan tifqaayo laakiinse zaid ayaa u naxay arrin naxdin leh ayaa meesha ku arkay waxaan arkay nin meesha ku jira waaskada oo la dilay laakiinse jirkiisa dhanna dhiig ayuu ah aniga markaas waan qayliyay zaid ayaan u qayliyay laakiinse markii waxaan ogaaday inay naagta ka dambeysay arrinta afka ayaana qabsaday markaas zaid ayaan u cabsanay ninkana meeshiis iyo asaga dhan dhiig ayuu ahaa ninka meed ayuu ahaa markaas aniga waan cabsaday runtii aniga zaid ayaan u baqay markaas kadib waxaan ogaaday inay naagta banaanka joogto waxaan dhan ka dambeyso oo ayadana aniga i sugayso waxay iisoo kaxaystay inay aniga i cunto laakiinse aniga markaas waan fikiray anigoo markaas naxsan oon dhahaya maxaa ku soo raaciyay saaxiibka usoo kaxaysan weyda ayaa marka dambe farxay waxaan arkay ninka meesha jiifo ninka la dilay inuu midi watay midida ayaan soo qaatay saa iskaga difaaco naagtan meesha joogto kadib midida ayaan soo bixiyay anoo dhahayo naagtaas waa dili musqusha banaanka ayaan uga soo baxay kadibna way soo fiirisay ayadoo zaid ii soo fiirinayso oo ay naxsanta ayaa waxaan dhahay ninka musqusha ku jiray ma adaa dilay sababta u dishana maxay tahay kadibna waxay tiri aniga ayaa dilay maxaa iga qoodi kartaa way kuu dhamaatay adigana waa isoo raacday laakiinse caawa ayay kuu dhamaatay waana ku dilayaa igama badbaadayso kadib runtii baangad ayay soo qaadatay way igu soo orday laakiin waa u baneeyay nasiib wanaag kadib way igu soo orday haraantideeda ayaan ku sasaray kadibna haraanta ayaan ku dhuftay wejiga kadibna way qaylisay waxay tiri kasoo gaarooy kadibna dad ayaa kasoo orday qolalka kale aniga zaid ayaan u cabsaday markaas waan cararay qof ayaa albaabka soo furay anigana anoo naxsan ayaa waxaan wacay 911 bes booliska ayaa ii imaaday kadib arrintina waxay ahayd 2 qof ayay ahaayeen ayadana waxaa lagu eedeeyay inay dad badan horey usoo dishay dad zaid u badan soo dishay runtii waxaa la sheegay naagtan inay dad badan soo cuntay oo dishay naag horor inay tahay anigana saaxiibka ayaan waxaan dhahay gaari ii soo diray kadibna gaari ayuu ii soo diray anigoo markaas zaid u naxsan kadib ciddeeda ayaa imaaday runtii zaid ayaan u baqsanaa maskaxdan waa dejisanaya laakiinse ayada ayaan kusoo riyoonaya mar kasta oo aniga aan seexdo laakiinse sheekadaas waxay ugu dhacday anoo jiro 18 sano mar dambana kuma riyoonin